waxaan rajaynayaa in aad maqashay hadalkani tuubooyinkaaga way xiran yihiin. maanta waxaan rabaa in aan la wadaago sababta keenaysa tuubooyinkaaga in ay xirmaan. tuubooyinkani halkee laga helaa mise halkee ay ku yaalaan? anatomiga ka dambeeyo, histologiga ka dambeeyo, cytologiga ka dambeeyo iyo physiologiga iyo xanuunada gaarka ah oo keeni kara in ay tuubooyinkaagan ay xirmaan. fadlan muuqaalka nala dhamayso, waxaan idin tusi doonaa aadna ka barani doontiin muuqaalkani siday u dhacaan mise habka u dhaco tuubooyinka xirmo mise qaabkee ayay tuubooyinka u xirmaan iyo cudurka ugu weyn oo ku keeni kara tuubooyinkaaga in ay xirmaan. cudurkani halkee aad ka qaadi kartaa mise halkee uu kaaga imaani karaa? siduu uu kugu dhici karaa cudurkani oo tuubooyinkaaga dhibaato weyn gaarsiinayo? intani iyo in ka badan ayaan halkani inkula wadaagi doonaa. saynis badan baa ku jiro. muuqaalka dulqaad u lahaw in aad dhamaysatid si aad wax badan aad ugu fahantid. halkani waxaan inkugu sharxi doonaa structure-ka mise tuubooyinkani sida ay u egyihiin markii image ahaan lagu tusiyey mise sawir ahaan lagu tusiyey. waxaan ka bilaabi doonaa minkii oo kan ah. halkani minka dhankiisa kani waa tuubooyinka lagu sheegayo. halkani waxaa ku yaalo waxa loo yaqaano ogxaansidaha hoostani hoose ah. hoostani waa ogxaansidihii, kanina waa tuubooyinkii iyo meeshii iskaga darsamayeen ogxaansidaha waxa loo yaqaano fimbriga. sidaad arki haysiin kani waa structure-kii oo gabadha dumarka ah, reproductive system-ka oo gabadha dumarka ah. halkani sidaad arki haysiin waa cervix-ka mise makaanka minka afkiisii hore ah. kani waa uterus-ka mise minka sida loo yaqaano meesha ilmaha ay ku barbaaraan ay ku dhashtaan oo maaragtay isku dhijiyaan waaye. kani waxa waaye marka halkani wixii ka bilowdo ilaa halkani aad arki haysiin waxa waaye maaragtay tuubooyinkii. tuubooyinkani marka afar qayb bay u kala baxaan. qaybta koowaad waxa waaye qaybta u dhow minka oo ku dhagan darbiga minka. qaybtani waxaa loo yaqaanaa intramuralka. qaybtani dhexe oo halkani ah waxaa loo yaqaanaa ismaska. kani oo dhexdani ah oo kor u qaadsan aad arkaysid waxaa loo yaqaanaa ambilaga. halkanina waxaa loo yaqaanaa infundibulumka mise fimbriga. tuubadii marka waa afartaas qayb ayay u kala qaybsan tahay. waa qaybta u dhow minka oo loo yaqaano intramuralka mise qaybta ku xigto oo ismaska ah iyo meesha cunuga uu ku bacrimo oo maaragtay ukuntii ay imaanayso oo fertilization-ku ka dhacay oo halkani ah oo loo yaqaano ambilaga iyo meeshii ogxaansidaha ku dhaganeed oo ah kani waa ovariga. ogxaansidaha waaye meeshay ogxaanta ka soo baxdo waaye. qaybta ku dhagan oo maaragtay u dhow waxaa la yiraahdaa fimbriga iyo infundibulumka. marka waxaan filayaa in aad fahantay sawirkani. waxaan rabaa marka sawirkani inaan soo qaado oo tuubooyinka kaliya aan ka soo gooyo. waxaan rabaa tuubadii gudaheed in aan fiirino. tuubadii gudaheed haddaan fiirino, tuubada markay sidaan tahay oo maaragtay dhankani ay tahay qaybtii ogxaansidaha u dhoweed, gudahani markaan fiirino marka hadda marka waxaan u gudagelaynaa histologiga. qaybta gudaha oo tuubada ah siday u dhisan tahay qofka caadiga ah adigoona tuubadaada xirneen oo caadi ah siday u dhisan tahay tuubadaada.
waxaan ka bilaabaynaa qaybtani gudaha unugyada laga helo qaabku u dhisan yahay iyo sida ay tahay iyo ogxaanta sida ay ku soo maraysa waxa caawiyo in ay ogxaantani ay halkani soo marto ilaa iyo maaragtay ay bacrimintii ay ka dhacdo halkani wixii ka dhacayo physiologically histologically iyo hadhow damba sabarkani haddaad fahantid naqshadani hadhow damba easy bay kuu noqonaysaa xanuunkani sida uu ku yimaado oo tuubooyinka xirmaayo caabuq hadduu ku dhaco oo caabuqani let's say for example aan dhaxno PID-ga saamayntu halkani ku yeelan kara tuubadani gudaheed waa maxay muxuu keeni karaa marka waxaan rabaa structure-ka siduu u dhisan yahay tuubadani gudaheed in aan wax yar isla yara fahno kadib aan u gudagalno caabuqi sidii uu dhibaato uu ku gaarsiinaya halkani tuubadaadi uuna ilmihii maaragtay uu kaaga hor dhibaato dhanka ilmaha aad ka qaadaysid oo ku keenaya inaad uurad yeelanin mar walbana intaasoo sano aad ku dhibaataysan tahay waqti walba oo maaragtay bacrimintii ay dhacdana lagugu sheego wax ectopic pregnancy-ga la yiraahdo iyo xanuumo kale oo ka hortagaya in aad uur dhan aad qaadin marka aan isla fahanna marka naqshadani aan soo qaado aan isla aragna sida ay tahay tuubada marka gudaha loo fiiriyo microscopically mashiinta lagu fiiriyo oo maaragtay tuubadani gudaheed sidee u dhisan tahay waa maxay unugyada tissue-geeda sidoo yahay unugyo noocee laga helayaa cells noocee laga helayaa markii la yiraahdo tuubada gudaheed marka la fiiriyo sawir sidaan bay noqonaysaa sawirkani wuxuu leeyahay 3 qayb buu kala leeyahay oo tissue gudihiis marka la fiiriyo structure-ga tuubada marka la fiiriyo 3 nooc bay leedahay 3 qaybood ayay u kala bixaysaa qaybta gudaha ah oo loo yaqaan mucosa-ga wuxuu u dhisan yahay qaab dhismeed oo sidaan ka naqshad ahaan example مثلا sidaan bay u dhisan tahay halkani marka waxa la yiraahdaa lumenka was gudaha darbiga gudaha tuubada ayaan fiirinaynaa siduu u dhisan yahay tuubadani gudaheedii lumenka halkan waaye sidaad arkaysiin lumenkani agagaarkiis wuxuu leeyahay structure-kani waxa loo yaqaanaa epithelium-kani wuxuu leeyahay unugyo mise cells oo sidii qaab dhismeed oo columnar loo yaqaan ayuu leeyahay columnar epithelium cells kani waxa la yiraahdaa epithelium-kani waa noocga marka waa noocga columnar-ga unugyada ayaan ka hadlaynaa hadda marka columnar iyo structure-ka tissue-ga ayaan ka hadlaynaa hadda marka columnar epithelium cells ayaa la yiraahdaa columnar epithelium cells kani waxaa kale la jira weli waa waxa waaye simple columnar cells waxa ay leeyihiin marka oo ku garab dhigan cells kani wax yar oo farafara ayuu leeyahay darbiga gudaha oo tuubada ah laga helayo cells kani oo farahan badan leh ciliated cells ayaa loo yaqaanaa ciliated cells epithelium-kan wuxuu leeyahay ciliated cells muhiimad ayuu leeyahay farafarahan badan aad arkaysid oo ku dhigan darbiga gudihiisa ah cells-ka kale laga helayo waxa waaye darbiga oo maaragtay tuubada gudaheeda peg cells wax loo yaqaan mise peg cells-ka marka waxay yihiin in nature waa secretory dhacaan bay soo sii daayaan kanna oo ciliated cells-kan ah wuxuu soo sii daayaa asagana dhacaan shaqada kale uu leeyahayna waxa waaye halkani wadadaan aad arkaysid oo sidaan ah wadadan waa wadadii ogxaanta ay maraysay ogxaanta marka laga soo sii daayo ogxaansidaha waa wadadii ay maraysay waana tuubada gudaheeda tuubadani gudaheed marka waxa ka caawinayo inay ogxaantaasi straight u socoto oo ay leexanin ilaa iyo ambilaaga ay tagto meeshii bacrimintii ka dhacaysay ay tagto
waxa ka caawinaya waxa waaye unugyadani loo yaqaano ciliated cellska. Ciliated cellskan wuxuu ka caawinaya waxa waaye dhacaanka markuu soo sii daayo ogxaanti markay tan tahay ogxaanti ayuu riixaa uu sii soconaya ogxaanti way sii soconaysaa wadadii ilaa iyo meeshii laga rabay inay tagto. sidoo kale gudaha ma aragtay tuubada gudaheed waxa kale leedahay wax loo yaqaano qaybta ku xigto waxa waaye qaybta oo musculariska qayb waxay leedahay oo murqo oo smooth muscles murqahan laba nooc bay u kala baxayaan. kuuna waxa waaye elongated waaye longitudinal waaye kuuna waxa waaye circular. waa koobab kuuna waxa waaye in ay maaragtay longitudinal ay yihiin. murqahani marka maxay caawinayaan? murqahani waa peristalsiska ayaa caawinaya ogxaanti markay ay soo socoto ma waxa riixayo kani dhacaan buu soo sii daayay oo meeshii wadadii ayuu facilitate gareynaya sidii ay ogxaantii ay meeshii ugu rakibmin ay socoto. socodkii iyo pec cellskan oo ayagana dhacaan kala soo sii daynaya pec cellskan dhacaankii soo sii daynayaan ogxaantii iyo maaragtay shahwadii ragga ka timid markay ay wada kulmaan shahwadani pec cellskan wuxuu ka caawinayaa inuu shahwada sii riixo oo hor u sii wado dhacaan nutrientna uu ku darayaa si ay maaragtay fertilizationkii iyo bacrimintii ay ku wada kulmaan ay ku dhacaan. murqahani markuu soo laabo murqahani shaqada ay leeyihiin oo ku heerarsan oo loo yaqaano musculariska qaybtani musculariska loo yaqaano ha isku qasin labadan qaybtan gudaha waa mucosagani wuxuu leeyahay unugyo oo columnar epithelium columnar epitheliumka noociisa oona ciliated weli waxay sii yihiin ciliated waxay leeyihiin farqo gacmo farafaray leeyihiin. farahani waxay caawinayaan oo unugyadani leh dhacaan inay soo sii daayaan ogxaantii hor u wadaan. sidoo kale gudaha mucosarka waxaa laga helayaa pec cellska. pec cellskani waxa ay caawinayaan in nature waa secretory dhacaan bay soo sii daynayaan non ciliated waayo laakiin se dhacaan bay soo sii daynayaan oo hadhowteedii dhanka shahwada mise spamka caawinaya. darbiyadan oo ku heerarsan oo muruqyada smooth muscleskan oo longitudinalka iyo maaragtay circularka waxay caawinayaan ogxaantii inay sii riixaan peristalsiskii ogxaantii ayay sii riixayaan. sawirka ugu dambeeya qaybta ugu dambaysa waxa waaye loo yaqaano histologiga aan ka baxaynaa waa serosaga macno badan kuma lahan laakiin waa qaybta koowaad oo maaragtay habdhiska koowaad oo darbiga tuubada waa. hadda markaan u gudu galno sidee uu maaragtay caabuqu ugu sareeyo oo saameyn ku lahaani kara tuubooyinkaaga waake sidoo uu maaragtay ku dhacaa sidoo uu saameyn kugu yeelan karaa sidoo uu dhibaato kugu keeni karaa iyo calaamadihiisa ayaan u gudu galaynaa.